Allah u naxariistay laba qof ayaa ku geeriyooday shan kalena way ku dhaawacmeen shil gaadhi oo saaka salaadii hore ka dhacay duleedka Berbera. Labada gaadhi ee shilka isku dhacay ayaa ka lahaa gaadhi Probogas iyo sidoo kale booyad shidaal. Dhaawaca iyo dhimashada dadkani ayaa waxa la gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Berbera. Dad goob joogayaal ah ayaa waxay ka warameen shilkani iyo sidoo uu dhacay. gaarigu wuxuu ka soo baxay halka wadada Barco Fran Probogas labada gaari halkaas isku baan halka muraad taalo dabeetana deemarka dambi mariyay gaarigu halkaas gaarigu marayo ilaahay gaantaas ku duweeyo maqaaxidaas u galay meedkii laawixii ma ku soo ararno annagoo ciida ka badan dabeetana darawalkii meeda iyo intii kaloo dhaawac ayaan ka soo saarno dabeetana waxaan saaray gaarigayga yar damar qadiya ayaan saaray dhakhtarkana waan geeyay haddana nin baa ku dhintay dhakhtarka markii aan geeyay shilku dabeetana halkaas ku dhacay saaka subaxii shantii barkii waxaa dhimashaa laba dhimashaa inta kale waa dhaawac waa afar ba dhaawac aan maranaya shilkan walaal wuxuu dhacay si aad degdeg deesha halkan aan joogo meherada way shidnayd anigu halkaas ku soo tukaday cawdu wata halka taalaba baabuurka dhexdiisa wata taalaba taayirada hoosteeda markaan soo tukaday soo laabtay halkan aan maaday intana ka soo baxday halkan ka baxdo kadinkana ka yar baxdo halkan sii socotay marka gaarigu wuxuu noo soo galay ana bartan taaganba oo meherada bisa u taagan intana halka gabaabka ka baxday ayuunba maxay tahay sanqadaan maqlay bugtaan maqlay halkan aan maray waxaan si eegdan eega waa laydhkan iyo waxaan helaacno dadna laydhka dib hadana tan ka laabo ana halkaaba sii socdaba oo hal baabka ka bixin baa soo galay gaariga maxaa wax ku noqday gaariga waxa wax ku noqday walaalo kan wax kuma noqon nin kaliya ta saarnaa ka kalana gaariga kale badan baa walaal gaariga saarnaa shan qof baa saarnaa shan qof aan ka shan qof mid gaariga mar dambe laga soo furayo waan hayo meesha waan ka imaan marka gaariga isagoo ninka wali laga soo furayo u dhex fadhiyaba ninka beelka u xidhnaa shanina dabada taala shan mid meed yahay saddexna dhaawacta